وحيري ما أنت إن كورونا فايروس كودنتو أما ودنه يستاغو أما الشل جاري أن كودنتو أما أنو ننتبه السيارة كلا أيضا كودنتان وحن كتشعالي إني هيدي دشو ما أنتنا تي إلهي قدرديسا تيو إلهي حقيقي والله يا أخي يعني واحد أركيسا إنه حتى آخر لحظة من حياته كان يجاهد وكان يقاوم مركو ساو فرديو كعنتي سامدك داوعين باقو عاي ما دقاجين كرايو هدي سنوار اوغان لها اي اوغان لهين انه سدح ذن مجاهد كميد يحيى ما يدلين هدي قدومين لهين مددار ساي نولو لو قبطان الهينا تاو كنبد غليي اننا نحننتاسي سنوار اسيره يا إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه قلنا بدقلي إلهي بينك كافي إلهي بينك كافي تاس إلهي أخي وحنو بهنا إنه دلك السنوار أن يستول تاجنه وايو دلك سا عبر أيا كشرة واحد يرجلين أوتاي تدخل مسلمين تحققوا تركها ولي سي شريعة دين توافصن قريقة عن توسته waxay dhiirigelin iyo baraarujin ay u noqonayso ayo kale muslimiinta fuleeda ah ee mafhuumul jihaad wa aqligooga iyo waaqicooga iyo garaadkooga iyo takhdiidkooga intaba uu ka maqan yahay muslimiinta markaan leeyahay fuleeda de qaarna waa qaar ka gaabiyey qaarna waa qaar xaqiiqatan de gaabista ay ka gaabiyeen jihaadka oo islaamka kamid ah in uga gaabi fulinimo waa jihaadku geesnimo u baahan jihaadku nafrid buu u baahan jihaadku xoolo hurbu u baahan jihaadku wuxuu baahan inaad nolosha aakhiro aad doorato oo nolosha adduunyada aad faraha ka qaato yaxya in as-sinwar rahmatullahi alayhi waxaanu aragnay in isagoo tuutihiisii xidhan boqshadiisii rasaasta iyo qumbuladuhu ay ugu jireen xidhan oo fi safi alawal muqbilan ghayra mudbir saabiran muxtasib boorku u qariyey qiiqii baaruudu ay meel kasta kaga taalo oo cadowga foolka fool ula dagaalamaya in la dili taasi waxay beenaynaysaa riwaayadii iyo sheekadii Netanyahu iyo qoomkiisu عليهم لعين الله المتتابعة أي وريتشينيين oo ah in siwaar uu ku dhex dhuumanayo caruurta iyo dumarka in siwaar raxmatullaahi calayhi isku hareereeyay nimankii la qafaashay iyo dumarkii la qafaashay yahuudaha baqasho uu ka baqanayo inuu geeriyoodo laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala sheekadooda dhanbe been buu ka dhigay oo xitaa fiidiyaha ay soo saareen ee markhaatiga ka ah ee laxadaadkii ugu dambeeyay min xayaati al-akh al-mujaahid الأصير الشهيد رحمة الله عليه أي كتصيصو إنه سفه كده قالمي والرفح وهيد إلا بشي ميشا أي هول قلبا عظمات الصهاينة أي كودين إنه سفه كتشري وأنا هين نين أمير شيغانا يوب ميل اسكو قارنايا أما هو كتشرا أما عرور اسكو هريري مو هين لكن حاك أي جندي من جنود الله إنه سفه يسوي كده قالمي waxa la yaab kale horta waxa hubaala dad khubareynaysa maanta leeyihiin in dawladda Israa'iil ay ka qoomameynayso soo saarka ay fiidiyaha soo saareen way ka qoomameynayaan la shak waxa weeyaan geeridiisu waxa ay hiikinaysaa dad badan oo shahaada jacayla dad badan oo jihaadoona ayay hiikinaysaa oo ay ku beenaysaa in dariiqiisaasi ay raacaan waxaan akhriyay in الجزيرة ayaa dadkii Falastiiniday mikrofoonka la dhaxmartay marka qoraal ay ka soo saareen baan akhriyay nin Falastiino tagsiila ah oo 30 jira ay wuxuu fiidiyaha waxaan daawaday 30 jeer baan daawaday buu 30 jeer ayaan daawaday sababta ku daray wuxuu yiri ma jirto la توجد طريقة أفضل للموت من هذه الطريقة طريقة loo geeriyoodo oo ka wanaagsan sidoo sinwaaru
loo dilay ma jirta buu yidhi fiidiyahaan carruurteedan tusaa kuwan awooga u ahay ee axfaadeyda ana insha allah fi mustaqbal waan tusi doonaa buu yidhi gabadheedan 42 jiro hooyo oo 4 carruur la qaxday ayaa iyaduna waxay tiri kuntu أؤيد السنوار كقائد واليوم أفتخر به كشهيد بدر ما شاء الله waxay tiri waa reer Gaza waa qaxooti 4 caruuray la qaxday waxay leedahay sinwaar markii hore ka hogaamiye ahaan raalli uga ahaa maanta waxaan ku faanayaa inuu shahiiday marka akhi waxaad arkaysaa yani yahuuda inkaar baa ku dhacday in iyo kuwa kale dee la socdaba fiidiyahaasi wuxuu ku noqday masiibo ku noqday dib lama noqon karayaan maanta meel kasta lagu hayaa waxaa kaloo in u baahan inaan halkan aan sheego akhi kadalika sinwaar raxmatullaahi calayhi markuu 59 jir markuu ahaa video ku hadlaya inaad adig laftaadu ustaad inaad daawataan filaya sinwaar wuxuu ku leeyahay taqriiban waa berigii koronadan filaya inay ahayd wuxuu yidhi akbar hadiya buu yidhi hadiyadda ugu weyn ee cadowgeyga in yuhuuddu ay isiin karaan waa inay igu dilaan bal fiirso ya isagu wuxuu arkaa dilkan inuu yahay طريقا إلى الخلود iyaguna inay ka takhaluseen inkastoo dee ay gaaladu maanta ay fahmeen in mafhuum al-istishhaad lada muslimiin way fahmeen qunbulad nuclearna kaga daran gaalada muslimiinta shahaadadoonka ee jecel hamuuntu u hayso in ilaahay dartii loo dilo oon u aabayeeleen inay rasaas madaxa kaga dhacdaan ama ay hanaqa goyso way fahmeen imanka gaaladu way yaqaanaan waana arrin si allaale si ay u waajahaan aanay maanta garanayn bal qofku leh hadiyadda ugu weyneed isiin karta ay yuhuuddi isiin kartaa waa in ay idilaan liadhab ila allahi subxaanahu wa tacaala shahiida